jareer iyo jaleec yaa abuuray alle jareer iyo jaleec yaa abuuray alla abuuray jareer iyo jaleec yaa abuuray alle mahay maslaxa saalax suleymaan xiriir badan baana dhaxmaray ma ahan in dadka ay na cunsuriyeeyaan ma ahan inay dadka na aflagaadeeyaan ma ahan dadka inay ka sheekeeyaan waxyaalo laga gudbay oo adduunka uu ka gudbay gabdhaha Soomaaliyeed qaarkood markay waddamankaas tagaan waxaa aroos Jamaican Kenyaati Faransiis dad aan u qalmin anaga waxaan ahay qof Soomaaliyeed maslaxa saalax suleymaan waan jeclahay jecel baa naga dhaxeeyo waan ilaahan iskaan qoray waan guursaday guurkana rasuulka ayaa baneeyay ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuu baneeyay quraankana waa lagu sheegay oo waxa la yiri halis guursado sidoo kale inta qabiilkana la tacaarufo waaye marka waxaan aad ugu xumaa in nala cunsuriyeeyo in jareer iyo jaleec meeha la keeno in waxaan loo fadhin Atooshir iyo sidoo kale xaaskiisa ayaa waxay noqdeen lamaane dhawaan nolosha ku midoobay sidoo kale meherka iyo arooska lamaanahani ayaa waxa ka soo qayb galay badiba dadka caanka ah ee ku nool Muqdisho iyo sidoo kale dad caan oo iyaguna live TikTok kaga qayb galayay lamaanaha nolosha ku midoobay ayaa waxa jiray mudooyinka ugu dambeysay dad daba dhigtay isla markaana baraha bulshada aflagaadooyin kala duwan soo marinayay iyagoona sheegayay inaanay isku qalmin labadani qof isla markaana ay gabadhu tahay gabadh qurxoon isla markaana ah daarood balse isagu uu yahay in markaasi iyada aan u qalmin oo jareer ah waa sida Soomaalida ay tiraahdo balse saaxiibayaal arintaasi ayaa waxay noqotay mid iyaga dhankooda saameyn ku yeelata hurdana ay kala diiwaayaan muuqaal kasta iyo sawir kasta ay soo dhigaan comment raqiis ayaa loo qoriyay isla markaana lagu leeyahay isma qalantaan ee doqon gabadhu weeyaan si walba ha noqotay calafka iyo dooqu maaha iyagu mid qabiil iyo sidoo kale qolo yaqaana balse waa kuwa Alle subxaanahu wa ta'aala uu qadaro calafka ayaa isku daray waxaana ay noqdeen runtii lamaana da'yar oo isku qalmay isla markaana nolosha ku midoobay magaalada Muqdisho oo uu ka dhacay arooskooda iyo sidoo kale xafladda meherkooda waxa joogay dadka ugu caansan Muqdisho fanaaniin iyo sidoo kale majaajilaystayaal YouTubero looma kala hadhin waxaana ay noqdeen runtii lamaane ay in badan oo bulshada kamid ah ay ku farxeen guurkooda halka dad kale oo faquuq iyo sidoo kale qabiil iyo sidoo kale waxyaalo kale oo aan loo jeedin ay daba dhigeen run ahaantii labada lamaane markii ay isguursadeen hadal hayntooda iyo saameyntooda waxay noqotay mid cirka isku shareertay waayo Atooshir waxa uu ahaa runtii shakhsiyad bulshada laga yaqaano isla markaana saameyn ku leh sidoo kale gaar ahaan bahda durdur media oo si weyn baraha bulshada dhexdeeda ugu hambalyeynayay ayaa waxa uu noqday mid arooskiisu si weyn baraha bulshada u qabsado cid kasta oo baraha bulshada isticmaasha ayaa u soo hambalyeysay balse ayaama yar kadib waxa uu la kulmayaa dhibaatooyinkan hadda hortiina ka muuqda oo uu sheegayo in la leeyahay jareer ayaa tahay gabadha iska fur uma qalantid gabadha waad khiyaantay iyo erayo kale oo noocaas ah oo komentiyada iyo sidoo kale indhahooduba ay qabanayaan gabadha waxa ay sheegtay in ay jeceshahay isaga isla markaana aan la kala kaxayn karin cid kasta oo wax kasta ay doonaan soo qora maaha kuwa iyaga dhexdooda soo gali karaya Atoosh ayaa isaguna sidoo kale sidaasi aaminsan balse qabiilku maaha wax la isku maago iyo sidoo kale wax la isku caayo iyo wax la isku furo balse qabiilka waxa ka weyn calafka iyo jacaylka iyo sidoo kale kalsoonida isku qabaan labada ruux waxaana ay runtii noqdeen lamaanahan da'da yar leh kuwa runtii isku kalsoon oo iyagu meel kasto ay joogaan jacaylkooda soo bandhiga haddii aanu anagu nahay axansixinta wararka waxaanu ku faraxsanahay guurkooda iyo sidoo kale noloshooda balse waxaa jira dad ka xun oo markasta kommentiyo raqiisa soo qoraya isla markaana ku leh waxaa tihiin laba aan isku qalmin laba shakhsi oo kala meel ah laba shakhsi oo aan noloshooda isla qaadan kareynin balse Atooshir ayaa tan iyo intii uu ka soo duubay muuqaal qolka ay ka jiifan doonaan Hotel Madiina oo ku yaala magaalada Muqdisho kaasi oo loo siiyay si farxadda arooskooda uga qayb qaataan bahda Madiina Hotel ay u siiyeen qol quruxdiisa laga yaabay balse tan iyo intii uu qolkaasi muuqaalkiisa soo bandhigay isla markaana uu ka soo dhex jiifsaday waxay noqdeen bulshadu kuwa indhaha si weyn ugu haya gabadha uu guursan doono balse ugu dambeyntii ay soo ogaadeen inuu guursaday gabadha hortiina ka muuqata oo runtii gabadh eebe oo qurux ku galaday Atooshir isaga laftiisu maaha shakhsiyad xun waa shakhsiyad aad u wanaag badan oo runtii qabiilka uu ka soo jeedo markaad eegtay sidoo kale wanaagiisa shakhsiyadnimadiisa sida uu dhaqmayo maaha kuwa runtii isku xidhan
Catoosh Yare runtii waxa uu ka mid yahay dhalinta Muqdisho uga firfircoon isla markaana cid kasta oo xitaa meelo kale ka yimaada ku soo dhaweeya Muqdisho. Catoosh Yare shakhsiyad aad u qalbi wanaagsan oo cid kasta oo Soomaaliyeed aan kala jeclayn qabiil iyo qolo midnaba aan ku dooran dadka, balse soo dhaweystay cid kasta oo magaca Soomaalinimo ay ku weyn tahay. Sidoo kale xaaskiisa ayaa iyaduna waxay aaminsan tahay in Catoosh Yare uu yahay nin Soomaaliyeed, sidoo kalena uu yahay nin Muslim ah oo iyada runtii damaanad qaadi karaya. balse xaaskiisa waxay sheegtay in komitiyada raqiiska la soo qorayo aysan uga tagi doonin Catoosh Yare. Catoosh Yare runtii isagu waxa uu noqday shakhsiyadda ugu dulqaadka badan leh baraha bulshada, maadaama tan iyo intii uu aqal galay ay bulsho badani ku foganeyd sidii ay u kala kaxayn lahaayeen lamaanaha nolosha ku midoobay oo Facebook oo Soomaali ay aad u isticmaashay, sidoo kale aaladda TikTok oo muddooyinka ugu dambeysay faraha laga gubtay ay si weyn ugu qaadaadhigayeen. Hase yeeshee taasi ma aha mid iyaga dhibaysa, waana runtii midtii dhiirigelinaysa dardarna gelinaysa guurkooda iyo farxadooda. Runtiina farxad ayay u tahay in la hadal hayo, balse dad ba jira runtii si weyn ugu fogan inay kala kaxeeyaan, balse kuwani maaha kuwa kala tagaya. Alla subxaanahu wa tacaala waxaanu ka baryaynaa in labadii isku badhaadha ee isku waara alla uu ka yeelo, ubad khayr qabana kala hela ayaan alla subxaanahu wa tacaala u weydiinaynaa inuu weligood ay nolosha saasi ugu midowsanaadaan. saaxiibayaal idinkuna sheergareeya muuqaalka la wadaaga asxaabtiina iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Sidoo kale Catoosh Yare waxaanu leenahay walaal dhag ha u dhigin arrimaha noocan iyo kala. Waxaa jira dad yow ka horeeyay adiga oo la kulmay dhibaatooyinka noocan markay ay guursadeen, balse xagxagashada iyo sidoo kale lidka waxa iska leh guurka. Shakhsiyad kasta marka uu guursado waxa uu runtii la kulmaya arrimo lidku ah iyo sidoo kale dad yow ka soo horjeesanayay, sidoo kale dad dhahaya adiga gabadha ka qurxoon, gabadha ayaa ka qurxoon. waa waxyaalo runtii dabiici ahaan Soomaalidu ay si weyn iskaga taqaano. labada isku qabiilka ah ee xitaa aan kala laandheeraysnayn haddii ay aroosaan waxaad arkaysaa dad komitiyada ugu qoraya gabadha way ka qurxoon tahay, war gabadha ma geydid yada ka qurxoon, war gabadha waqti ha ka lumin, ma iska fasaxdi nin kale oo qurxoon ayay heli lahayd. erayo noocaas oo Soomaali badankooda ay komitiyada ku qoraan. waxaa jira dad badan oo intay fiiriyaan aan dhag u dhigin balse hore u sii dhaafa. waxaan rajeynayaa in sidoo kale ay Catoosh Yare iyo xaaskiisu iyaguna noqon doonaan kuwa intay fiiriyaan iska dhaafa fariimahani aan faa'iidada lahayn ee iska soo qorayaan dadka qaar. saaxiibayaal Catoosh Yare runtii waa qof aad iyo aad wanaag badan oo bulshadu ay si weyn u garan og tahay, balse waa wiil da'yar marka loo eego dhammaan dadka soo aflagaadeynaya. waxaa jira dad isaga ka waaweyn runtii oo markaad aragto caqligooda iyo sidoo kale waxay soo qorayaan aan runtii isku qalmaynin Catoosh, balse waa isagu mid aan arrintani dhag u dhigaynin. sidoo kale xaaskiisa oo iyaduna kalsooni buuxda ku qabta in Catoosh Yare uu yahay nin Muslim ah isla markaana nolosheeda ka faala qaadi karaya. sidoo kale xaaska Catoosh ayaan leenahay ku kalsoona xaajigaaga si aanay dadkaasi idin kala fogeynin. mahadsanidin saaxiibayaal, muuqaalka sheergareeya la wadaaga asxaabtiina iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed. mahadsanidin.